dawladood ee Djibouti iyo Soomaaliya ee baarlamaanada ururka hooyooyinka ee Djibouti iyo dhammaan protocolka aad iyo aad baan idin salaamaya gabayadii halkan laga qaaday ayaa iga kala lumiyay wixii aan oran lahaa runtii laakiin waxa qurahaatay ila gudboonay waxa weeyaan inaan sheego inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ilaahayna uga mahad celinayno labada madaxweyne ee sharafta leh mudane Ismaaciil Cumar Geyle iyo mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo laba sano horteed meeshan oo bannaan labadoodu dhagax dhigay inay maantana ilaahay inagu simo inay labadoodii oo nool oo walaalaa oo faraxsan oo wada jooga inay daaha ka rogaan safaaradii oo dhisan taasi ayaa horta ah wax ilaahay loogu mahadnaqo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geyle wixii ay ummadda Soomaaliyeed xalay iyo maanta iyo shalay ba lahaayeen wax ka badan anigu oran maayo laakiin dadaalka faraha badan iyo midhahaasi uu soo beeray ummadda guud iyo dibadba la wada og yahay ma dhamaystirmeen mana qurux badnaadeen haddii aanu ku darin in uu safaarad dawladda Djibouti leedahay inuu dhiso oo ku qurxiyo oo yiraahdo anna waan joogaa يعني وصحيحي قدامي مركز مدحوينه سفارة هول بدن iyo xoolo badan intaba waad gelisay annagana sharaf bay noo ahayd inaan ahaano aniga iyo wiilal iyo gabadhaba intii halkan u soo dirtay in aan ka shaqeyno oo waqtigayga gelino maantana waxay diyaar u tahay inay hawl gasho walow aan uga faa'iideysanay visit officialkan maaragtaanay aad maanta ku timiday mooyaane awla badani ay u dhiman yihiin oo safaaradda dhismaheega qayb badan ay ka hareen sidan ka weynaan doonto sidanna ka sii qurux badnaan doonto laakiin waa lagu hawl gali karaa oo xafiisyada iyo deegaanka intuba maaragtaanay way qalabaysan yihiin waxay ka kooban tahay safaaraddu 4 dhisme oo waaweyn deegaankii safiirka deegaankan hadda nagu xiga oo ah maaragtaan deegaanka diblomaasiyiinta iyo ka ku xiga oo ah maaragtaan deegaanka martida iyo xafiisyadii oo dhinaca kale ah waxa kale oo maaragtaan safaaradda ka dhisan masjid ay maaragtaan adeegsadaan ama ay ku tukadaan oo ku cibaadaystaan xubnaha safaaradda iyo maaragtaan martida intuba waxyaalaha dhiman waxa ka mid ah maaragtaan meel lagu ciyaaro tenniska iyo maaragtaan handballka ayaa iyaguna dhisan ayaa la dhisi doonaa oo dhiman waxa kale oo dhiman dhisma dhaqameed xafladaha lagu qabani doono oo u samaysan aqal Soomaaliga oo kale ayaa isaguna dhiman kolka madaxweyne waxaan rajaynayaa idinka iyo maaragtaan madaxweynaha kale walaalka ah iyo ummadda soo booqataba inay maaragtaan waxaad aragteen idin farax gelin doonaan waxaan u dhaafayaa madaxweyne dalkan hawshaan qabanay nooma hirgasheen haddaanay joogin dad walaalahaya ah oo shacab iyo dawlad iyo hoggaan intubana jecel oo na soo dhaweeya oo wax nala qabta oo na garab taagan haddaanay joogin ma qaban karneen ummadda Soomaaliyeed dadaalka ay ku jirto oo uu ku hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo
waxa ay u muuqataa cid kasta oo aanay indhuhu maaragtaane xanuunayn yani waa u muuqataa horumar ayaa socda horumarkaasi ayay ka mid tahay safaaraddan oo ay marag ay u tahay inay safaaraddan dhisanto oo hirgasho malaha inaan maaragtaane idhaahdo hambaliyo dawladda maaragtaane jamhuuriyadda Jabuuti oo madaxweynaha uu hogaaminayo iyo marwada koowaad iyo hambaliyo dawladda Soomaaliya oo iyaduna maaragtaane na soo dhaweysay oo dhismaha kan maaragtaane nagu garab gashay inuu hirgalo hambaliyo labada ummadood ee walaalaha ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh